In ka badan 12,000 oo gaadiid ah kuwa oo ay soo saaraan shirkadaha Toyota iyo Lexus ayaa lagu soo waramayaa in lagu arkay cillado kuwa oo ku saabsan kaamirooyinka marka gaadiidka ay gadaal u noqonayaan. Arrintan ayaa lagu wargeliyay shirkadaha waxaana la faray in si degdeg ah cilladahani loo xalliyo iyadoo ay 12,000 oo gaadiidka ah ay ku sugan yihiin guud ahaan deegaanada kala duwan ee dalka Norway. Shirkadahan ayaa sheegay in la keeno garaashyada iyadoo ay fartay in dadka milkiilayaasha ah ay yimaadaan ama ugu yaraan ay qof wakiila soo dirsadaan sida lagu soo qoray page-ka gaadiidka dalka Norway ee motor.no. Marka laga soo tago 12,000 ee gaadiidka ay soo saaraan labadan shirkadood ee cilladan lagu arkay ayaa waxaa guud ahaan dunida gaadiidka labadan shirkadood ee cilladan lagu arkay ay gaarayaan in ka badan 1 milyan oo gaari kuwa oo ay isla cilladan dhanka kaamirada ahi haysato. Maamulaha guud ee keenista gaadiidka dalka Norway Ebsen Olsen ayaa sheegay in arrintani cilladan ku timid 12,000 ee gaadiidka ay soo saaraan labadan shirkadood lagu arkay in kaamirooyinka ay iska damayaan marka gaarigu uu gadaal u noqonayo ama xitaa mararka qaar ayba shidmaynin, taa oo cillad software-ka dhankiisa ah. Waxa uuna intaa ku daray in ay wadamada qaar sharci ahaan ay mamnuuc ka yihiin gaadiidka aan haysan kaamirada marka gaadiidka ay gadaal u soconayaan, kuwa oo uu sheegay in ay sababi karaan ama ay ka dhalan karaan shilal kuwaasoo halis gelin kara nafta dadka wada gaadiidka ama kuwa gadaashiisa marayo. Waxa uuna sheegay in shirkadahan la faray in ay xalliyaan cilladan ku timid gaadiidkan gaaraya 12,000 ee ku sugan guud ahaan deegaanada kala duwan ee dalka Norway, kuwa oo uu sheegay in hadda cillad bixintooda iyo dib u habeyntooda lagu jiro. Ha yeeshee ma jiraan ayuu yiri cillado kale oo lagu arkay, halka warka kuwooda ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.